بقول سنة متكيتري بوحشة أذا بوح سمي قرمذوبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ميل والبيدين الدنيا كجوكتان فيديو نمو وناكسن مالي نمو وناكسن حلي ولبا هي وقت والبيدين تايكونا صدوادا كريبتا صومالي تي في بقول سنة متكيتري بوحشة أذا بوح سمي قرمذوبة أم بطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ميل والبيدين الدنيا كجوكتان وصاحبكم سيد علي محمد على صو ويدنا هيا مركلا يا برامج كني arrimaha kiribtada 24 saac 48 saac marba xilli ayaanu hawada ku kulanaa inaga oo isku dhaafsana casharada aanu ku soo qaadano teknolojiyada blockchain iyo cryptocurrency-ga isla markaana gaar ahaan aanu si gaar ah toddobaadkan u falanqeynayna qaabka dhalinyarada Soomaaliyeed uga faa'iideysan karayaan inagoo hadba isku dayayno in su'aaluhu ay noo noqdaan dhinacyada kala duwan haddii aan barteena YouTube-ka aanu ku leenahay YouTube-ka Crypto Somali TV oo haddii aad ku cusub tahay like aad noo dhigi karto subscribe saari karto asxaabtaada la wadaagi karto dhanka kale page-ka Facebook-na waad ku soo biri karaysaan Crypto Somali group oo TV group oo iyaguna aanu inta badan idinku soo weydaarno muuqaallo 24 saac live isla markaana aanu jecelnahay in dhalinyarada Soomaaliyeed xilli waliba iyo waqti waliba ay noqoto shanta qaarad ee dunida ay ka joogaan in ay teknolojiyadan cryptocurrency-ga ay ka haqabtiranto fahamka iyo cilmiga ay u leedahay muuqaalkani waa live labada dhinac haddii aad ka daawanayso dhinaca Facebook-ga iyo haddii aad ka daawanayso dhinaca YouTube-kaba su'aaluhu waa ay idin furan yihiin dagaalka koowaad ee aad qaadi karaysaan waa in su'aalihiina soo tuurataan si aynu isu wada fahamno isla markaana aanu u falanqeyno mowduuca aanu ku soo qaadan doono casharadena taxanaha ah ee dhinaca asxaabta YouTube-ka ay ula bixeen hayaanka teknolojiyada lacagaha cryptocurrency-ga iyo teknolojiyada blockchain-ka iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay isu qabadsiin karayaan inay la qabsadaan isla markaana aanu uga soo dul tilaabno waxa Crypto Somali TV ay ugu yeertay lacagta qabiilada ama lacagta caalamiga ah teeba dhalinyaro dantu noogu jirta taasi oo si gaar ah aanu maanta u falanqeyn doono waa maxay lacag qabiil lacagta caalamiguna waa tee يا عواتول حقك كمان كرنا يا حقك كسي بلابي كرنا سؤاله أنت مقالك وصل نصي بلابن بلانو أجنا قابك جود السوق يجوج العجها كلا دون كريبتات السيدة ما أنت أفري لما تكي ساعة على صرافي وحالك السوق يسوب دلي دمنا أنا أمي لحسنا تكنولوجيا دنيا بلوكشين كي كريبتوكارنسي أبديت كا لنا أفري لما تكي ساعة السوق يوحى يسبدل وحنا ضرمي كرينا يسوقه أفري لما تكي ساعة على صرافي وحاجات ديباي كجيران إنك صاح حدنا أي جيران كوينان soo yara qaaliyo bay marka loo fiiriyo dhinacan financialka FIA-da iyadu decentralized application-adan kala duwan ka shaqeyso iska riba ah taas decentralized land ay isaguna 20% cirka isku soo shareeray coinanka caadiga ah kamid ah compound ayagu naftigoodu dhinacan governance-ga كان بلوكشين كودا أي يجون هرمود كي يندين على ديفايجا أو يجون عند مضافرية 10% عركة إن سكوسة شرطة جولم أفري 20% بانكور أفري 10% يسوق اليوبي يأكلوا الله يسليه كرا بالانسر 10% زايا كوين لابي 10% نيم 10% باباي نصيب ونكسن أصحابتي دين على التليجرام كانوا كلا وداقني وعنديني ورهاية نصيبك يعرفكم ماشى ويدن لقب دونه ليس كاي يسقون 9% سوق اليوبي الرين 9% يعرف سكوسة شرطة إريدي سودمية ذا كسرت جافري 8% ججبا يعرف سكوسة شرطة إسواب يسقون نفتيسو تضبط دبع تضبطني تضبط يعني ضربي كرينا إنه سوق اليوبي وليدنا عسالها ودرساتوران كريسان انت عنو ايجي انه اسبدل كسوقه iyo jawidiisa kala duwan niyo iyo cosmos ayaa iyaguna soo yara qaaliyoobay waanu dareemi karayna yaa kaloo la isdhigi karaayo to ayaa soo qaaliyoobay iyo bala bla meeshii la darsado maanta waxay ahayd 24 saac ka hor jaaris aad u wanaagsan oo dhinacyada asxaabtu ay ka kala qaadan karayeen isla markaana aanu eegi karayno balse aanu u soo noqday Crypto Somali TV waa maxay lacagta qabiiladka waxaanu ognahay Soomaaliya in iminka laga soo issue gareeyay waxa aanu u naqaano lacagaha EVC-ga ama saadka ama dahabka laakiin dib marka aad u wada milicsato waxaanu arki doonaa inay noqon doonto mid deegaaneed qaab federaal may u dhisaan mise qaab qabiil baa loo dhiso tol bay dabada la gashay waxaana arki karaynaa marka si caalami ah u fiirino
lacagahaasi mobile money-ga ah ee iminka isgaarsiinada shirkadaha kala duwan ay u kala ordayaan iyada naftigeedu inay u dhisan tahay qaab qabiileed u dhisan mid caalami ah inay noqoto midkeed midda kalena markay la ficil galayso ugu yaraan ay kugu bixi karayso inaad bixiso qiimaha tax message-ka lagu bixiyo ama in kale inay ku sii korto laakiin iyada naftigeedu ma horumarba wadanaan lacag oolin shilin oolin shirkadihii iyo afartii magaalada ugu taajirsaneydna ay mid waliba uu taagan yahay lacagta reerkeena ma la hoos imaado maxayse ku dhisan tahay markaanu fiirino inaanu dhahno waxaanu dib u milicsanaynaa in albaabkaasi aan ka soo baxno teknolojiyada blockchain-ka iyo lacagani digitalka ay decentralized-ka aan cidina kala lahayn shanta qaarada dunida daqiiqad walba aan u baahdo iyo xilli waliba aan u baahdane aan awoodi karayo in aan la ficil galo su'aalaha muuqaalku inta uu laafyahay labada dhinac asxaabta dhinaca facebooka ee Crypto Somali TV ama qaybta kale ee dhinaca YouTube-ka intuba way idin soo tuuran karaysaan inta muuqaalku uu inoo socdo bashir waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhinaca YouTube-ka soo dhawaada asxaabta وحقيقة واي موقتا او waxay ugu muuqataa waxaan arki karaynaa marka aan dhaho saad ayaan rabaa waxa uu imaanaya in shirkadahan Golis iyo company kale aan imaado ay shirkad iga noqoto reer Puntland miyaa tahay marka aad doonaysid inaad isticmaasho marka xamar tagana la yiraahdo warkaala hawiyihii reer EVC miyaa tahay mise markaan Hargeysa tago oo la yiraahdo aan ka xumahay in erayadaas ay soo baxaan laakiin aan la dhaho waxa rabtaa idahab intuba ma waxay u dhisan yihiin qaab maamul goboleed misama qaab qabiileed iyada naftigeedu dani ma noogu jirtaa in sidani ay u sii dhisnaato ayagu waxa ay iyaga naftigoodu jiritaankoodu ku jira in shilinka Soomaaliga uu dirishada ka maqnaado dadkana ay sidani u sii iskam gareeyaan lacag aan la garan karayn balance sheet-keeda iyo meel u socota iyo meel ay ka socoto aan hayno qora in malaayiin la soo issue gareeyay message uu dir ay tahay simkaarka company-ga maadaama ay isticmaalayso tii dhabtahayd adugu biilka lagugu soo diray ama si kalena kugu timid aku noqoto mid jeebkayga ku jirto kamburka ku siinayana percentage aan uga daro Dubai markuu markabka ka dalbado oo aan intaad wax uga gadatay aan aniga yaro bakshiisha ugu daro si tan magaalada uu iiga qaato ma socon doontaa marka taas ay noqoto mise u baahan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed si taas ay uga soo gudbaan inay isticmaali karayaan lacagahani kale ee teknolojiyada blockchain-ka cryptocurrency-ga ee dadka balance sheet-koodu lahaayo ay isticmaalaan ama intoos ay u isticmaalaan kan aan la kala lahayn 12 sanane aan maalin qurax ama daqiiqadaad sheegtay 10 millisecond aan hawada ka maqnaanin kana amaan badan dhammaan inta aan soo sheegay ee lacagaha deegaan qabiileedka Soomaaliyeed ee mobile money-ga iminka noolugu yeeray waxaad moodaa inay horumar tahay 100% u dhiganta in dadku ay qadaan haddii ay daqiiqadii hawada ka maqnaato waxaana u soo joognay malaayiin jeer dad ay ku dhacday oo la yiri salaantan waa laakiin EVC-gi ma la bixin karo taxigana wuxuu taagayaa EVC-gi iyadoo la ishubin salaanta xagee loo kaxaynaa saara see loogu kaxaynaa hospitaalka loo gelinaa lacagtiba laygama siinine EVC-na uu hawada ka maqan yahay koone isagoo soo quraacdo faraxashay la yiri EVC-gi ma shaqaynayo abo hebel aba lacagtiisii ama alaabta dhaqay way dhacday laakiin kani ma hamid elbirqsi hawada ka baxayo waxaana ku sii dheer dib markaa u milicsan oo kale Soomaaliya markii waxaani mobile-ka xitaa laga isticmaalay qaabkii aanu u isticmaali jirnay miyaa loo isticmaalay mise qaab kale oo ka duwan xiliyadii ay soo baxayeen waxyaabahani markaan u fiirino sanadkii 2017 oo kale ilaa 2006 ilaa 8 bilowgeedii eriyadaasi ayay ahayd oo sheekadu qaabka ay u bilaabatay ay ahayd qaab 99% aad mooday inay heeto waxaan loo yaqaano in control ku xad dhaaf noqdo xilligii saadka uu bilaabanaya dadka la dhijiro kala sawiraha la idinka qaaday hadda doonaysin mobile-kaada lacag aad ka dirto kuguna soo dhacdo shirkaduna ay ku aqoonsato laakiin taasi waa ay dhici weysay kadib qooleysatada Soomaaliya oo iyaguna kaalin weyn ka qaata inay lacagna dadka ku laayaan kay inay dilaan rabaan kii dili lahayna lacagtay soo siinahayeen laga rabo iyaguna dambiilayaal la aqoonsanaya ay noqdaan maxay dana dantu waxay tahay in systemkii dhamayba ay awood u yeeshaan in la damiyo laakiin marka ay noqoto in teknolojiyada blockchain-ka cryptocurrency-gu ay bulshada Soomaaliyeed isticmaalaan ma kula tahay lacag qof lagu dili rabay darteed ayaa loo damin doonaa systemka protocolka Bitcoin gantalada kuwa haystay nuclear-ka iyo FBI-yada dunida iyo sirdoonada dunida ayaana albaabka soo agmari waayay oo uu mar qura ka hoos qaadmay ka weyn
lacag qabiil ka weyn lacag company ka weyn ganacsade ku naaxa masaakiinta xoolahooda iyo in ay xabsiga ugu jiraan laakiin xabsigii dunida mar quraxay technology-dan blockchain-kii cryptocurrency-gu ay dhaxeen in dad mutadawiciin ay yimaadeen ay dhaxeen annagu waan ba ilaawnay in dunida aan weydiisano ogolaansho sababtuna waxa ay tahay adiga hadda marka aad mobile-kaaga iisaadka ama iidahabka ama EVC-ga soo furanayso waxa ku horeysa in message aan qorto magacaada laga qoro lagu yiraahdo jaamac iyo cabdisalaam miyaa lagu dhahaa mise faa'iid oo Maryam mise xaajo mise Cambaro laakiin marka ay noqoto in la yiraahdo Bitcoin iyo protocolkiisa ayaa la isticmaalaya waxa ka badan oo qora soo dejisasho aad soo degsato software isla markaana aad ka soo dul tilawday in lagu yiraahdo Soomaaliya una qabatayna saarano ma awoodo dhalinyarada Soomaaliyeed suuqyada dunida inay ku soo bandhigaan awoodooda cilmiyeed awoodooda waxtar awoodooda wax soo saar iyo awoodooda design ba sababtoo ah wax walba oo ay dhalinyarada Soomaaliyeed soo bandhigaan cid qaadan karta ama ay la kulmi karaan ama ay kula dagaal tagi karaan ma jirtee waxay u xanibnaa doonaan in la yiraahdo meeshan ayay dun joogaysan ma joogi doonto dhalinyarada Soomaaliyeed xabsigaasi mana dul taagnaa doonto lacag qabiileed u dhisan inta ay helayaan lacag si caalami ah dhaqaalaha dunida ay ku soo biiri karaan wax ku soo kordhi karta iyaguna ay wax ku soo kordhi karaan haday doonaan ay boqoran karaan lacag ayagu ay leeyihiin oo smart contract isla markaana u shaqayn karta meel walba dunida ka joogan su'aaluhu waa idin muhiim inta muuqaalku iyo faahfaahinadu ay noo socdaan waxaad ku soo dagaalami kartaan si aad u fahantaan waxani waa su'aalaha dhinaca asxaabta YouTube-ka nagala socota like noo dhahay hadduu muuqaalku live imika ku soo gaaraya subscribe saar asxaabtaada la wadaag aanu halkani ku falanqaynaa lacagaha kala duwan ee technology-da blockchain-ka cryptocurrency-ga iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ay u fahmi lahaayeen dhinaca asxaabteena Facebookna waxaanu idin leenahay la wadaaga muuqaalka asxaabtiina gruubyadiina kala ku sii tuura si muuqaalku uu noogu sii dhaaraado isla markaana aanu u helno dad su'aaluhu qaadi karayaan isla markaana ay dhihi karaan waxani si bay noo anfacayaan haddaan qaldanahane live muuqaalka idinku waxba nooma dhaxeeyaan oo qora inta randinka uu soo samaynayo ay idinaga xigtaa oo computerku uu ka soo baxayo inta kale mobile ama goobaha kala duwan ay ka fiirsanaysaan ayaa idin su'aalaha ka soo tuuran karaysaan oo cidina aydan idin kala xigin laakiin markaanu ka soo tagno qaab qabiileedka ay u dhisan tahay maxaa kale macnaa oo ku jiro miyaan dunida kula ficil geli kara iyada naftigeedu qaab ceenkee ay ku timid aaminkuna heerintee leeg ayuu jira marka aanu fiirino aaminka waxaanu ogaan doonaa in dib aan u milicsano taariikhdii 2007 2008 ba maxaa dhacay markii saad hawada laga saaray oo la yiri kooxaha dadka laaya oo dadka qarxiya dantoodu kuma jirto in sawir laga qaado si ay u furtaan adeegani maxaa xala waxa xala in la dansho la koobiyeeyo serverka iyo code-ka dib loo qoro loo sheego in simkaaradu open noqdaano qofkii raba isagoo simka soo gatay ama simkaarka soo gatay uu yiraahdo aniga hebel liidaha oo sidaas EVC ugu furmo 10 simkaarna isku qaadan karo iyo wuxuu awoodo meeshuu doonana oo money laundering-ka waxa loo yaqaan kaga sameyn kara ama inuu lacag kaga ciyaaro ama meeshuu doono uu la qabto ku dilayay kii uu soo dilayay kii lagu bixin lahay kistane intuba ay meesha wada dhaxmarto oo sheekadu ay noqoto ha loo fududeeyo criminalisku inay dambiye geystaan laakiin hiya ama halkani crypto dhaxdeeda ayada naftigeedu dadku lacagaha way isu diri karaan meeshay doonaan waa qaban karaane waxa ay sii dheer tahay in marka hawada laga baxo la wada xanibnaanayo dambiilayda cabsidooda dartood wax waliba sidaas loo sameeyay aynan awoodi karaynin iyagu inay danshaan meeshay taagan yihiin loogu dul tagi karo haddii loo baahdo oo ay noqoto in la yiraahdo dadku dan ayay ugu wada jirtaa in wanaaga laga wada shaqeeyo laakiin waxa ka sii muhiimsan in si caalami ah xabsigu dadku uga soo bixi karayaan oo ay u noqon karayaan kuwa ka qayb gali karaya suuqyadani ay 360 bilyan ee dollarka Mareykanka 24 saacadood dhaxmaraysay oo aad moodo lacagaadu culus isla markaana ah lacaga aan cidina hor istaagi karin realna ah xilligu doono qofku uu awoodo meel allaala meeshuu dunida ka taagan yahay inuu isagu horu sii qaato waxaan leenahay haddaynu nahay bahda reer crypto ama developeradii ha noqdaan ama dadka isticmaalo ama asxaabteena oo kale si aad u falanqaysaba uma baahnin in aanu ogolaasho weydiisano dunida waxa maanta iga xiga oo qora in software aan soo degsado
kadibna aanan magacaygana qof u dirin sawirkaygana aanan qof u dirin waxaan doonana aan isticmaalo dhaqaalahayga iyo xorriyadaydana aniga oo ku dhex nool magaalada muqdisho ama hargeysa ama boosaaso ama bari ama baydhabo ama xudur ama diinsoor in aan xorriyadaydii dhaqaale meesha kala bixi karo hebel hawaday ka baxday cidina aysan dhihi karin Hong Kongna aan wax u diri karo 10 daqiiqo gudahood Washingtonna daqiiqad gudahood aan awoodi karayo inaan ku gaarsiiyo Rome iyo Parisna ay ilbiriqsiyo qaadanayso waxaan doonaa inaan ka dalban karayo aniga oo isticmaalayo meeshan la yiraahdo teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga haddii aan halay stable coin-nadani lagu soo dhex issue gareeyay oo $1 u dhigmo ii noqon karta iyada naftigeedu ammaan mustaqbalka dheer ah sababtoo ah kuwa muqdisho ama hargeysa ama bariba lacagaha qabiiladu iyagu ma leeyihiin mustaqbal aan ahayn oo qurax koox hebel ayaa tiri hala dansho meeshana ay ku dhamaatay systemkii oo dhan weydii dadkii isticmaali jiray 2007 lacagtii laga danshay meeyay isweydii malaayiintii Soomaaliyeed ee la yiri lacagaan isku darsanay wax keena ee dirishada ay ka baxday waxay ku fiican yihiin in raasumaalka iyo gabagabada mustaqbalka muddada dheer aan laga fakaro markay noqotane in la yiraahdo server computer in lagu soo gamo bambo ee damaya hantidaadu ma ku noqotaa meel ay ku kaydsanto ama ay ku xafidanto midaan serverkiisuna la daminayn meelna oolin gantaala sheegtay madaafiic hadii la dhacane aanu ciidina ka wax qaadanayn ama aysan ciidina waxba ka qaadin ama aysan kaaga dhumin hantidaaduna ay ku dhaxtahay hanti iyadoo xora adiguna sharaf iyo cizi sidii xilli nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dawladiisa islaamka oo kale ay dadku hantidooda sharaf iyo cizi ugu dhaxlahaayeen aad ugu dhaxlahaan karayso waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada dunida iyo dhaqaalaha cusub iyo dib u qorida system dhaqaaleedka oo dib loo qorayo taariikhdu dib ay u milicsan doonto albaabadani kala duwan ee dunidu ay marayso idinku waxay duna aragtaa reer Soomaaliya oo dhaqaalihii qabiil ka dhigtay galbeed kuba 7 bangi oo dunida ugu waaweyn ayaa hogaamiso cid kale oo qabiil kale oo 7 qabiil aan ahayn ma ka jirto haddaanu 3 anagu haysano inta waxa laga hayaa 7 kale oo iyadana ah qabiilada ugu waaweyn ee systemkaas oo kale dadka galbeedka ku nool oo dhani ay gacantooda ku jirto waana tan uu 2008 Bitcoin protocol uu u soo baxay isla markaana groupkiisa Toshi la dhahay yaa garan doona ma koox dumar bay ahaayeen ma koox dhalinyaro bay ahaayeen ma koox odayaal bay ahaayeen FBI kala duwan ama hay'ado sirdoon oo kala duwan bay ahaayeen ilaahay aan garan doona lacagta maanta waxaanu u bedelnay siday iyagu ugu doonayaan tolkay saddexdan qabiiliye ka badanbo inay u bedelaan message la diro mobile ah anagu application aan u bedelno abkaasi ayaa wuxuu dadka ka wada dhigayaa daartan quruxda badan ee aad dhistay ee bangiga aad ugu yeertay in dadkuba bangi socda oo noqdaano ab lacag bangi ah ay helaan adiguba bangiga iyo gurigan aad sheegaysid application ayaa ku dhex orada laakiin abkani waxa uu xor ka yahay kuwa kale ee aad u diiday ee aad albaabka maalin waliba ka ceshatay ee taagan tahay adiga sidan u yeela doonaya inaad caawato salaama bangi lacag ka furato waxaan ku sheegaa oradi xaska soo bedelo sandal xataa soo qaado sandal xataa xafiiskii ma wadi kala bax malaayiin ayayna ku dhacda laakiin kani uma baahno ma haysata telefoon $15 ka Mareykanka jooga ama telefoon Android oo internetka ku xirmaya oo qora kadibna waad soo degsanaysaa wadna la ficil gali karaysaa waxayna noqon karaysaa markaas kan dollarka haysta inuu awoodo in dunida uu dollarkiisa wax uga qaato mustaqbalkiisana uga fakaro sidii dollarkiisa uu wax ugu bedeli lahaa haday ahaan lahayd in sanad kadib dollar iyo baro ka dhigto ama $2 ka dhigto ama kunka kan haysta uu 200 iyo 300 iyo 1000 iyo 2010 kunba uu sanadkii ugu fakaro halka aad cunaqabataynta ula taagantaad leedahay lacagan diyaarad la soo saarin oo la soo fakin systemkii Swift maadaama uu xiran yahay Soomaaliya way faqrinay ama baahiya loo dhimaa dadku inay dhahaan taasi waxay ku xiran tahay oo qora iyaga oo diidan in teknolojiyada blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga ay la dhaqmaan aamin maya aaminka waa code-ka telefonkaaga ku ordaya oo qora halka aaminku hadda uu yahay reer hebel ayaa iskala shirkadaano ama qowmiyad hebel ayaa iskala shirkadaano lacagtaas ay soo iishu garaystaan ama aan noqoto reer Puntland ama reer Hargeysa ama reer Koonfureed saddexdaas aanu kala taagnaanaha aan dhahna waana aaminaynaa haddaanu aaminayna meeyay qarannimadii iyo wixii kale laga sugayay 30 sano ayay ku dhowdahay hadduu qabiil wax tarayo inay wax noo tarto ama aanu wax ku soo kordhisano noo dhaanto dhalinyarooy in la yiraahdo
maxay ahayd riwaayadii radio Shabeelle gabixi jirtay ma liibaanaha lagu liibaanay عمر شام ayaan jeclahay qoraaga kamid ahay asxaabtaas dadkii reer muqdisho riwaayadii ma waay toole ma liibaanayaasha lagu liibaanay iyaga xasuusan doona laga tag dhalinyaro inaanu ahaano ma liibaanayaasha lagu liibaano aanu iminka dib u sii milicsano oo aanu dhahno qabiil awalba ma liibaanayaal lagu liibaano naga dhige markanne hantideenu ha ka dhigani ganacsatadani ma liibaanayaasha lagu dul taajiray oo ay noqoto in carruurtooda iyo faracooda oo qora ay nolosheena iyo noloshooduba ay ku wada xiraato aanu dubi fiirsano war soo tuura su'aalaha soo dagaalama aragtidiinana soo dhiibta kana soo taga markaasi in la idin yiraahdo ab system bangi ma leh system bangi ma hane maxaa horta system bangiyeedka loo isticmaalaa qaabku u shaqeeya maxay tahay waxaani hay'adani IMF oo kale ay u tilmaanto in la yiraahdo aan bank dadkan loogu yaro ama la yiraahdo bangi ma haystaano awood uma laha sababtuna maxay tahay waa marka aad bangiyada qaar ee magaalada Muqdisho ama Hargeysa ama Bari baad dul istaagto tiraado op waxaan ama baydhabo aad tiraado account bangi arbaa lagu yiraahdo passportkeen tiraado walaalta adiga bariga baydhabo ku dhashay maxaa passportka ay weydiinaysid adiga no bangi kana ama ID ama wax sawirkaadu ku yaalo oo magacaada ku qoran ولادي جامعة وبيتقان محارة دخلي ما يدشي ويكتويلك دخلي ما به أنا شرعي ماشي يا لا وحي تاي $5 إنها هروسة قبضته باسبورنا كنت أو باسبورك المحجرة لعاقو كهرباء وسجل فتي سيرة سبعة ستة إن قاضي عملوا تاجن أب كستيد هلا يجا صوتورة أو تاسي معناه دون قاضي يسمعها ضد شرعي هايستا اوكي شرعي ما هيسيو waxba ma qori kariyo lacag ma haysto lama dhigi karo ab bangiga fiigiisa ninkani ma awoodo horta inuu bishina siiyo iska dhaaf inuu isaga bangigeena isticmaalo lacag ku shubtay teena isaga ma keeli karnaa kaarkan aan plastikada aan u dhiibeyno kisteena ma naga sii karaa intaas oo dhan waxay imaanaysaa su'aalaha aad u fara badan laakiin waxa maanta waxaasi oo dhan soo cabiray oo ka soo dul tilaabay iyada naftigeedu malaayiin billions ayaa lagu tilmaamaa inta maanta dunida aan bangi ku dhaxlahayn shanta qaarad ee dunida iyadoo calculation kan IMF to hada World Bank oo la yimaada iyada naftigeedu calculation xisaabta ay ka soo qaadeen oo qora dadka guryaha leh sababtuna waxa guryaha loo soo qaada milkiile guri qofkii aan account bangi gurigiisa ijaar looga bixi karin ama loogu soo diri karin ayaa la yiraahdaa aan bangi bulshada waayo waxaana ognahay iyada naftigeedu xisaabta aysan ku sii jirin dumarka tolo iyaga naftigooda iyo dhalinyarada kale 20 jirada guryahaas mararka qaar laga yaabo inay iyagu yihiin milkiilayaal guri ama hadii haw inay haalahayd ama diyaarad qof dhalinyaro oo reerihiisa ay dhaxal uga soo tageen yaraan noqda oo reerihiisa ay dhaxal uga soo tageen oo la yiri iyaga naftigoodu xisaabta kama maqno dumar wax leh galbeedka lagama xisaabo ama dunidan kale sheegatay inay hor u martay dumarka wax leh xisaabtooda kama bidaha kasto alxamdulillah oo islaamku uu nagu sharfayo in aanu xisaabno qofka marka uu nool yahay waxay doontaa noqotay ama intuu waxaysto ama intuusan waxaysanba oo xisaabta ay noogu jiraan laakiin billion kan ay taagan tahay lacag ma haystaan waxaan arki karaynaa 4 ilaa 3 iyo bar ka badan dunidan ayaa internet maanta la ficil gasho 1 billion ku dhow ayaana dhaqaalaha dunida oo qoraa la ficil gala iyadoo shuruuda ay ula ficil galaan iyada naftigeedu ay tahay darajadii aan idin sheegayo ahay darajo dadku ay u kala ordaan inay gaaraan oo ah wara saaxiib ma ogtahay horta inaan kaar visa aan soo sameystay ama master kaar aan soo sameystay bas bank account ka sameystay oo ah darajada ugu sareysa dhalinyaradu isweydiiyaan ama galbeed ha lagu noolaado ama Afrika ha lagu noolaado ama Aasiya ama shanta qaarada dunida meesha doonto dadka qaarne dagaal kalaaba ka sii jiro dunidan dhinaca galbeedka markay noqoto dhinaca indhayarta naftigoodu China uu hogaaminayo waxa lala sii dagaalooyaa kist yaray kaashkeed sidii magaalada gobolada Soomaaliya iyo gudaha Soomaaliya oo dhanba dadku ay shirkadahani tolkay lacagta soo iishu garaystaan la garaneen meel u socotay meel ay ka socotay ula dagaaleen kaashko ay taagiin Muqdisho marka dhaxmaraysa 1 milyan oo shilin Soomaaliya wadato way kugu adagtaa adeeg inaad si fiican u soo hesho sababtuna waxay tahay reer tolkay kuwa lacagta soo iishu gareeyay doonayay inay madaxa nooga taagnaadaan ayaa waxay taagan yihiin ruuxan tirinteedii go'go'eeda rafaadkeeda ka dhaafay message ii soo dirtay lacagtii message-ka aaway su'aalaha soo turtay muuqaalku noo socdo oo si aynu u sii wadaarsanay isla markaana ay noogu noqoto su'aalaha jawaabiduna mid iyaduna aad u sareyso oo aanu heli karayno mawduuca waa noo sii wadaya qaybtan dhinaca kaashka la dagaalankiisa ayaa noogu sii boos gareynaya ma la oran karaa saaxiibka Bashir Ahmed wuxuu dhahay ma la oran karaa lacagaha ka shaqeeya Soomaaliya waa la isku halayn karaa boqolkiiba boqol mid la isku halayn karaa maaho
waxaa kaa badan oo qura hawada ayay ka baxday xalaa al-shabaab qarxisay gentaala ku soo dhacay ama serverkii waxaa u soo dhacay tugada internetka dunida ugu waaweyn oo ransomware qabsado isbaaradaasuu ku jiraa oo kistii ku jirta ee runta ayada la xisaabi lahayne way baxday ayaa kaa badan oo qura daqiiqadaasna xoolahaadu waxay yihiin kuwaad ku faqrisay kaashka ayaa boqor ah oo dadku ay boqor ku yihiin marka runta ay timaado in qof la aamino soomaaliduna waxay tidhahdaa hooyada haysaabo haybin ayay kaga baahan tahay oo macnaheedu yahay haddaa xitaa adigu lafahaada aad ku ogtahay hooyada inay lacag hayso maantana aadayday tahay oo isleedahay galabta asxaabtaada la soo caweey haddaadan dhin hooya galabta waxaan rabaa asxaabteeda inaan la soo caweeye xoogaa ii dhibaan gaxwadii meelaha kusii cabno hooyadeeda ka tahay inay ku tiraado wiilkayga asxaabtiisa u socdaa oo kistan hore jeeb kusii gasho sababtuna waa waxa marka aad adigu gacanteeda iyo taladeeda ku haysa aad u taliso ayay dani kugu jirtaa waxaana sababta aan u leenahay aaminku waa waxa keliya ee aan aaminay iyada naftigeedu waa qabiil ee miyaanu aaminay dad lacag nagu hortirsho dhahay balance sheetkeena waa kana tusaale hadda kambanigani tether ee dhinaca kamerada iga arkaysaan waxaan arkaynaa lacag US dollar u dhiganto oo dad ganacsada oo kala duwan ay dunida soo issue gareeyeen marka kaabkiisu guud hadda 4 bilyan iyo meeqo mara total supply-giisa ma rabno 4 iyo xagaayno marayna total volume-kiisa waa milyan 4 bilyan ma aqaan 3 bilyan ma aqaan dollarka Mareykanka oo hawada isku soo jaray dadka lacagtani waxay u dhigantaa lacagta guud ee suuqiisa ku jirta oo bangigooda taal inkastoo ayagu ay taagin dollar kaliya ma ahe marka kaabkeena guud waxa waaye lacag kale oo kala duwan ayaa kamid ah oo ay noqonayso hadda ababay cirkood isku soo jareeray 12 ababay lacag culus soo gashateeda soo aruuriyeen kuwa kala jiro aad u fara badan oo ka aamin badan isla markaana real dollar iyaga naftigoodu ah 1 bilyan iyo jajab aad arki karaysan oo real dollar $1 oo u dhigma Washington bangi ku yaal u dhaxyaan balance sheetkiisi lacagtaas bangiga taale dollarka runta ah ee ciidina foojar garay karin hay'adaha sharciyada waddanka Mareykanka ay soo sharciyayeen ayaydu isticmaali karaysaan inkastoo isaga naftigiisu marka qaar ay su'aalo ka imaan karaan laakiin maskiin Soomaaliya barnaho wax su'aal ka imaanaysa ma wadno anagu halkaas bilyan ba maaha waxaan soo issue garayn karaynay ma jiro company la dhihi karo intaas balance sheetkiisu yahay magaalada intaas wareegay laakiin marka aad Muqdisho dhex istaagtay aad tiraado meeqa EVC wareegi karto 1 bilyan iyo ka badan EVC waad arki kartaa mana garan kartid lacagta runta ee qolooyinkan waxaan sheegtay ay hayaan oo aragayno qora inay dadkii ka cuna qabatayeen marka koowaad boqortooyada aaminka ee kaashku waa boqor sababta loo dhaxay boqor waxa uu yahay waxaynu soo xasan karnaa qisooyinkii dunida ugu yaabka badnaa ugu dambeeyay waxa kamid ah Hong Kong aynu aragtaan China madaxa la isku jiraa oo waa ka goynaya nagama goyi kartiin ayay soo haystaan waa musiibooyinka gumaysiga Ingiriisku dunida dul dhigo waxa waaye qolaba musiibo uga tagaa oo 20 sano ka bacdi inay soo dilaacdo wiligeed aan xal loo helin waxa Kashmir ka socda Soomaaliya waxa ka socday goobaha doorashada Soomaaliyeed ilaahay hadda musiibad uga taagantahay waynu aragnaa qolooyinkaas kale adiga reer Hong Kong waxay taageen waa goyna kuwa aan kale reer Beijing waxay taageen wallahi gantaala idin dhexeena waxa sheegaysiin maxaa waay waxa dhacda marka dadku waa banaan baxaan dunida digitalka marka ay noqoto bangigaaga aad sharciyad ku soo furatay kaarka aad taranka ku raacayso la yaqaan ee iska awaato isanaga qaabka digitalka u shaqeynayo dadka markay banaan baxeen oo meesha banaan baxa isugu iimaanayeen maxaa tajayna ka haystaa canugan ay hadda tan safleboodka ay Sacuudiyaanka ay soo baxay isagu naftigiisu boqor sugaha ah sawir Ciise calayhi salaam wa salaam la yiri waa loogu talagalay bilyaniska ka bixiyay isaga naftigiisu muxuu sameeyay tijaaradii ugu weyn ee reer Sacuudi xabsiyada shaaxa ku cabayaan oo ay taagin askarta nin adam mishar soo qaatay ma shaaxa naga bixisid kistoodina bangiyada lagu xanibay wuxuu markay noqdaan gacanta digital markay noqoto kan talada hayana uu isagu talada u hayo waxaad faqri ayaad ka tahay kaashka laakiin muxuu ku wanaagsan yahay reer Hong Kong banaabixiye ka qayb galeen subax daba malaayiin reer Hong Kong la soo aruuriyo dhalinyara maxaa dhacay tareen hebel soo raacday wad hebel uga dagtay wad hebelna banaabaxa ka socday aadaana ahay dadka jidka maraya oo kaarka xunko dhiqan siyaaba dhibkii keen mooha tigidka daba gacanta ka gata oo kaash ku gato bangi dhan aan ku gadan kaashan soo qaadana waa imaana meesha tigidisi ka warqada ah raba ka warqada gadanay meesha rabta kala bah warqad iyo kaash orod soo qabo marka meelaha tareen ka soo raacay meelaha u sii raaco aniga inaan hore u sii qaado warqada xunta albaabka iga furta aan meesha doono ku sii tuuri karo marka kaashku waa boqor wuxuu boqor ku yahay aniga adiga ayaan kulanay tusalahan waxaad ii dhibtay $50 $50 waxa ugu badan ayaan sameyn karo xitaa saan aan u fiiriyo markarkii aan calaamadihi ka fiiriyo ku dhax sawirray aan okay aniga free fire gareey jeebkan ka shara mala aadaya taajirka magaalada oo ma dhaay nin wada lacag hayste
كوكتا كادور مرنا مسوا بين وحاو جامع يسوي تاجا لكن وانكو أمينا أمينكو وجوه الرأي محيط هنا نقول نفس الدي دفر باي قرايو كبعدين عن جامك كشف مركا وحاad ugu weyn ee aamini karto waxay ahayd waxaad gacantaada ku hayso sheekaduna waxa waaye baasha intaad adigu u talisay taladeedu ka gooda laakiin tolkay haday lacag qabiil ka dhigeen oo malayn ma doono igaraal noqda qabiil waa 30 sano oo dawlad la'aan iyo dadnimo la'aan ah oo aynan garan la'aanahay in aanu dadnahay inaanu yaa garanayo waxaan isku tilmaami karno sheeg qof Soomaali ah ama wadanka Soomaaliyeed weyn aad aragtay waxa loo tilmaami karo oo aan ahayn oo qura calooshood u shaqaystayaal u nool inay ciidan naga gadaan oo waxay iga maraysayeen mid kamid ah muuqaalo ka baxay dhinacan YouTube ka asxaab far badan aan kula wadaagay ninkii Tunisian ka ahay kacdoonkii Carabta markuu dhacay yiri madaxay waxa doontaan qaatee wuxuu yiri أنا عندي كلمة واحدة أنا دليل كرا هالكلمة وقرأ يدي بس أنا يجدنينا شرف كي الدولة النماذج إيه سياسيين تي العقد تي حاولوا كتاجر نماذج مساكين واحد نقاطع عيدا بس أنا قاعدين محبلو سايبلو بدو قطي هبلو وهستا هبلو بدو صرف سقال درا الله شيء هبلو سواي هبلو وحا وضط دقع سا وضط مع حربا وضط هبلو وحا وضط قلبيدا وضط هبل وحا وضط مويانه mid kale oo meesha dhaxmar xataa waa la waayay iyaga naftigoodu kii kursiga qabta ma awoodo 5 maalin oo dadka casuumee jaabka gaaladaas dadka ka casuuma marka wadan dadka gaalada oo dhan ay noloshoodu ku xirantaa way tujaaradeenina maxay keeneen simkaaradeena lacagta aan ka soo iisho garayno ayaa lacagta tolka ah waraado tol ma hidin miya garacsatadina waa liraa jaamaxay waxayd maxaa ka siiya war hargeysa wax keentaa nagala tagday wariya kan kalena muxuu dhawraa abo xamar leeyo sokorkeeno saay maxaa dubay ana ka sii hayno naga dhaafno lacagtano kistoona ku dara bakhshishka ma wax kale oo ku shaqeysa kala keena dhacro waa kuwa raashka sheegay odayaasha garku maaha in dadka lagu dhaco laakiin way dhacda kaashkuna waa boqortooyo kaashkina dawlad noo ilaalisan bajirino ayada naftigeedu dawladii mas'uula laga yahay waxa waaye waxa la dhooyaa ayada bi EVC-ga isugu dirayso markay gaalada ka soo qaadana la yiraahdaa keena biilka gaalada ma keenteen ha salaamo noogu shubo ama daabshiil noogu shubo oo isku dhabat ayaga laga shubto ka bacdi waxa la lambarada tolka isu shuba group ay ku xirayeen 4.5 maadaama isku soo doorateen qabiil hebel ba qabiilka kale ha u dhiiba laakiin halkani siyaasi ka cabsan maysid oo ma la dhahayo maanta madaxtooyada ra'iisul wasaaraha xukunka laga qaado ama doorasho soo dhawo hal maalin oo internet la'aan 4 sano mar hal la sugay meeshani waxay u baahan tahay quraamo in lagu yiraahdo anteerada maqan oo nadooga tago message ma diri kartid sanaantina ay umulaysa adiguna soo faraxalato aad taaganta maqaxidana kaga tago aan shaqo tago ee lagu yiraahdo ninkii cashier-ka joogo ku yiraahdo lacagtiisa sii raadi kala wallahi meel aad u dhaqaaqayso ma laakiin inaad bank si ahaato ayaguna ay sidaas kugu dul taajiraan waxaadan garanayn iyo meel ay u socotay meel ay ka socoto waxaad dhaantay inaad la timaado adiguna mid aad garanaydid meel ay u socotay iyo meel ay ka socoto natiijadeedana 24 saacad awoodo inaad xaqiijiso dhaqalaha dunidana aad kaga qayb qaadan karayso qaybtii su'aalaha ayaan jecelahay markani inaan noo sii joogo oo halkani ay noogu sii ekaato wajiga sida dadka aan lahayn ama loo tilmaamo in bangi ama ay dhaqalaha dunida ay wax kala qaban karin ay kala noqoto oo aanu dib u eegi doono moraal kale iyo wajiyada kala duwan ay kala lahan karayso maxaa kale su'aalaha idinkuna haysaan lacagta qabiilka iyo lacagta caalamiga teeba idin roon asxaabta reer crypto iyo asxaabta kale dhinaca Facebook iyo dhinaca YouTube ka intuba waad la soo wadaagi karaysaan teeba isleedihiin way dhaantaaho dhalinyarada Soomaaliyeed way awoodaan haddii hayaanka dunidu ay u guurayso iyo casharradeena teknolojiyada blockchain-ka iyo warbixinadan kala duwanba adaydun la qabsataan waxay noqon karaysaan kuwa dhaqaalaha dunida la qabsada meeshay doonaanna waxay doonaan la qabta hadduu muuqaalkani si random ku soo gaaraya ama si kale ba ay doona arki karaysaan waxay doon iman karaysaan shabakadeena crypto.com oo ay doon ka heli karaysaan casharo lacag la'aan ah aadna ku baran karto qaabka haddii haleed inaad sarrif la noqoto dunida suuqyada ugu waaweyn aad wax ka sarrifato hantidaadina aad wax ku soo kordhiso calafka iyo wixii eeba ku qoran dhalinyarada dunida iyo dhaqaalaha xorta ah ee dunida aan cidina hor istaagi karin aad la gasho adiga oo ka soo badbaadayo qolooyinka G4Jack soo booqo bogga casharada ee crypto.com shabakadeena lacag la'aan waaye cid bani ka rabta male ama aanu dhahayno sinti aan nasiiso mar qura aanu ka weynaano lacagta qabiilka iyo
liibaana lagu liibaanay balse ma liibaana lagu sii taajiray ayaanu noqonaynaa baashu dhaxalka Soomaaliyeed ee dhinaca dhaqaalahana markay noqoto iyada naftigeedu hantida Soomaaliyeed odayaashu ma baraan ilmaha say uga dhaxli lahaayeen waxaanu arki karaynaa waxa iminka ka socda shirkadaha ugu waaweyn Soomaaliya iyo odayaashan dhaxalka gaarayo ciyaalkii ay nooc kale ka dhigayaan oo ka xumahay in aadana bad kala gala laakiin way dhacdaa asxaabta dhinaca YouTube-ka Sagal Ahmed wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatuh bitcoin soo gato kadibna 5 bilood ilaa 6 bilood ama la baxo ويدي كتجي كريبتو واسكا هاوت كنا بوراك سري لوجو فقادو برولي بنا وحنو شعل حي مقالك لبدا دينعبا اي نوغو نقدان سيدان او كله ميد aanu isugu dhaafsano su'aalaheena iyo aragtiyadeena like dhinaca YouTube-ka waxay ka saacidaysaa dad fara badan algorithm-ka YouTube-ka inay gaarsiiso dad fara badan oo Soomaaliya fursad noo noqon karta inay ka faa'iideystaan oo ay dhahaan war meeshaan qabiilna ma lagu sheego waxa bala taagan yahay muxuu malibaanihi lagu taajiraha noqone ama malibaanihi lagu liibaan waa soo marna ogaada asxaabta ciidii karta male taariikh ay ahayd marsham filaya ruwaayada soo wax ka alifay dad fara badan waxaan ma hadalna ka bariga ruwaayad wax ajiib ah jirtay 2000 xiliyadeedii ka bixi jirtay radio Shabeelle magaalada Muqdisho asxaabta reer Muqdisho magaalada marka naftigeeda bilibaariyaasha lagu liibaan ruwaayad ajiib ah jirtay hadal haynteedu ay badneed dhalinyaraduna ay soo wada mareen dagaaladii sokeeya ayaa la yiraahdaa ama adigu ha u qaad qoraga ama walaalka ama in adeerka ha qaade mar baanu soo ahayn haddana waxaanu nahay mar kale balibaarayaal lagu taajiro asxaab kale dhinac kale looga heesto ogow asxaab kale balibaarayaal lagu taajiro lagu liibaana baahay jahannamana la galshiin ayaga naftigood balaayay loo dhiiba aad moodo in la yiri waxaad noqotaa jantaalkii dunida qof dhan bini'aadan jantaal loo adeegsanayo أنا أركض أنا وحيك صباحا كريبتو اسكو هاوت كنا بوراك سرا لوغو فغادو إنت المقال كان ميد لا ميد كوكل ميد دونا وسحبكين سيد كودنا هيا حنقون ما ليبانه لوغو تاجرو سيادن أنقون كوددال إن دقالة هدي هانتيداد واي نقدان ميد كوا سوقيا عالميغا عادوغا قيب قادن كرتو سيادوغا قيب قادتو waxaad u baahan tahay qoraynaad la ficil gasho lacagaha digitalka iyo crypto currency-ga la ficil galkoodu ma kaga baahno cilmi iyo xuduud iyo xad waxa u baahayaa qora in diyaarad u noqoto in dunida qorta ah aad la ficil gasho una noolaato qof sharaf leh oo sidii maalintii uu dhalanayo xor ah inta kan mid la mid ah muuqaal ah aan ku kulmi doonane asxaabta dhinaca Facebook dhinaca YouTube-kaba qaybta maqalka Anchor FM Spotify ya Podcast dhamaantan lagu isku duban crypto waa هاو كنا حين بونك سنة لوج فقط سيدا سينا بدينا نقول كنا تريو حين أمان الله بقول سنة متكيري وعشا أدب حسمي قرمدو بأم بطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو